kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta ee telefishinka SBTV qodobada wararka maanta ugu doorkoon ayaa waxa kamid ah musharaxiinta mucaaradka qaarkood oo maanta ku wajahan magaalada Garowe xukuumadda Soomaaliya oo beenisay hadalkii ka soo yeeray Khayre kooxo weysan oo dilka geystay magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya oo bogaadisay howlgallada ka socda Galmudug xiisada dagaal ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo abuurtay walaac hor leh Erdogan oo ka carooday go'aan ay dhawaan gaartay maxkamadda sare oo ku taala qaaradda Yurub qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran u diyaar garoow maalinimo sabti taariikhda ay ku beegantahay 26 December 2020 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran ayna ku bilawnay qarax weyn ayaa ruuxay wado anteeda badan marneed oo ku taala bartamaha magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka kaasi oo waxyeeliyay dhismooyin isla markaana dhaawacay 3 qof mas'uuliyiinta ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in qaraxan uu ahaa ku talagal waxaana hadda baaritaanka kiiskan hogaaminaya FBI da Mareykanka afhayeenka booliiska Nashville Don Aaron ayaa sheegay in booliiska loogu yeeray toogasho la sheegay inay aaga ka dhacisay qiyaastii 6 aroornimo ase yeeshee ma jirin wax astaamo ah oo muujinaya toogashada dhacday saraakiisha ayaa markii ay tageen goobta arkay baabuur laga shakiyay waxayna waceen cutubka halisaha qaabilsan hasi yeeshee intii ay sugayeen ayaa gaarigii qarxay khubarada amniga ayaa rumaysan in wicitaanka uu ahaa mid been abuur ah oo la doonayay in booliiska la isugu keeno goobta si kadib loogu qarxiyo Aaron ayaa sheegay in 3 qof loo qaaday isbitaalka inkasta oo midna aysan xaaladiisa halis ahayn waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale dhowr qof loo kaxeeyay xarunta booliiska si su'aalo loo weydiiyo balse ma bixin faahfaahin kiiska ayaa waxa la wareegay FBI da maadaama ay tahay hay'adda federaalka ee qaabilsan ficilada qaraxyada iyo argagixisada goobta qarax uu ka dhacay ayaa waxa ka muuqda burbur xoogan waxaana nasiib wanaag lagu tilmaamay in 3 qof oo kaliya uu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxa sida uu weynaa qof daris la goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegay inuu maqlay wax u eg bam aad u weyn oo ay la noqotay in dunida dhamaatay kiiskan ayaa weli wararkiisa isa soo tarayaan magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa saacadaha soo socda ku sii jeeda qaar ka mid ah xubnaha musharaxiinta mucaaradka iyadoo haatan qabanqaabo xoogan iyo diyaar garow laga dareemayo magaaladaasi musharaxiinta tagaya Garowe ayaa waxaa horkacaya siyaasiga caanka ah ee Daahir Maxamuud Geele oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay iyadoo ciidamo dheeraad ah la dhigay wadooyinka qaar ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland wararka ayaa sheegaya in ujeedka socdaalka musharaxiinta uu yahay ka qaybgalka shir weyn la sheegay in magaaladaasi ugu furmayo mudowga murashaxiinta iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka kaasi oo looga hadlayo doorashooyinka dalka sidoo kale xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee Garowe tagaya ayaa kulamo iyo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan ololahooda ka bilaabaya halkaasi Daahir Maxamuud Geele oo faahfaahin ka bixinayay socdaalkiisa ayaa yiri waxaan ku wajahanahay magaalada Garowe muddada aan joogo waxa la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ka qayb gali doonaa dood cilmiyeedyo iyo barnaamijyo kale oo aan aragtidayda siyaasadeed ku soo bandhigayo waxa ay go'an intii suuragal ah in aan qof walba oo Soomaaliya rugtiisa ka gaaro xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa weli mid aad u cakiran waxaana meel fog kala jooga mucaaradka iyo dowladda oo isku haya hanaanka doorashooyinka dalka wasiirkii maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo la hadlayay warbaahinta ayaa xusay in wasiiradiisa iyo hay'adaha kale ee dawliga ah ee u xilsaaran ilaalinta hantida dowladda ay ka shaqeynayaan in aan si qaldan looga adeegsan doorashada soo socota ee dhacaysa dhamaadka sanadkan 2020 iyo kan xiga ee 2021 oo jimcaha soo socda noo bilaabanaya Bayle ayaa sheegay in qarashka ku baxaya doorashada dhameystirkeeda ay ka wada shaqeynayaan beesha caalamka iyo dowladda 27 bishan si loo diyaariyo lacagta doorashada oo loo qiimeeyay ilaa $40 milyan isla markaana dowladda bixinayso 10% oo u dhiganta $4 milyan taasi oo lagu cadeeyay miisaaniyadda 2021 lacagtaas ayaa loo qoondeeyay
in lagu fuliyo howlaha baaxad leh ee doorashada sida safarada guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed, goobaha ay degayaan, xafiisyada shaqada, tababarada ergada iyo gunooyinka howlwadeenada. Ma jiri doonto lacag aan intaas ahayn in loo isticmaalo doorashada, mana dhici karto. wasiirku xitaa qasnada dowladda lacag kama saari karo, hanaanka maaliyadeed baa diidaya, ayuu yiri wasiir Bayle. ugu dambeyn, wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa beeniyay hadal dhowaan ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, wuxuuna tilmaamay in aanu jirin dowlad ama hay'ad caalami ah oo Soomaaliya ka joojisay lacag ay siin jirtay sabab la xiriirta doorashada dalka. waxaana uu xusay in xiriirka wada shaqeyneed ee Soomaaliya la leedahay bangiyada caalamiga ah iyo hay'adaha kale ee uu wanaagsan yahay. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil xalay dabley hubaysan ka geysteen qaybo ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. dilka oo loo geystay wiil dhalinyaro ahaa ayaa ka dhacay xaafadan Steexo oo ka tirsan degmadaasi. wararka ayaa sheegaya in ragga dilka geystay oo burcad ahaa ay doonayeen inay mobile ka dhacaan marxuumka, balse uu ka biidiiday iyaga oo kadib rasaasiyay. marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdigeni sida warbaahintu u sheegeen ilo deegaanka ah. sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo howlgallo kooban ka sameeyay halkaasi. muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay falalka dhaca ee xilliyada habeenkii loo geysto dadka shacabka ah. Jenaraal Maxamed Taalil Biixi oo ah taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka ayaa si adag uga hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda deegaanada Galmudug. taliyaha ciidamada dhulka oo booqasho ku jooga Dhuusamareeb ayaa marka hore bogaadiyay howlgallada ay ciidamada hubanta ka wadaan Galmudug iyo Galgaduud. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inay ka go'an tahay sidii looga adkaan lahaa dagaalyahanada Al-Shabaab weli ku xoogan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 22aad iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ay xoojiyeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee gobolada dhexe ee dalka. guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu murunsan yahay ayaa 23kii bishan soo saaray jadwalka doorashada soo socota ee 2021 gaar ahaan kuwa aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. guddiga ayaa shaaciyay in diiwaangelinta musharaxiinta doorashada aqalka sare ay bilaabanayso 26 bishan December, iyaga oo fursad 6 cisho siiyay sidii ay madaxda maamulada dalka ka soo saari lahaayeen liiska musharaxiinta, taasi oo ku eg isla 29 bishan. qoraalka ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay in la soo hormarinayo doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare oo ay qabanayaan baarlamaanka dowlad goboleedyada dalka sida ku cad habraaca doorashada iyo heshiiska golaha wadatashiga qaran. sidoo kale waxa ay sheegeen guddiga in 30 bishan December ilaa 6 Janaayo ee sanadka cusub ee 2021 ay ku soo dhameystiri doonaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare. arrintan ayaa imaanaysa xilli uu meel sare marayo khilaafka ka dhashay doorashada ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo musharaxiinta mucaaradka oo iyagu gebi ahaanba qaadacay guddiga maanta ku dhawaaqay jadwalka doorashada, waxayna ugu sii daraysaa xiisada ka dhalatay doorashada dalka. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ciidamo fara badan u dirtay magaalada xadka ku taalla ee Beled Xaabo, iyadoo ciidamo ka socda Jubbaland oo xiriir wanaagsan u kala dhaxeeyo Kenya ay ku sugan yihiin magaalada u dhow Kenya ee Mandera. xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhaxaloosan Kenya iyo Soomaaliya ayaa walaac loogu muujinayaa inay gacan ka hadal isku bedesho kadib markii ay dowladda federaalka ku eedeysay Kenya inay xadka ka abaabuliso jabhad hubeysan. senator Maxamed Macalin Maxamuud oo matala ismaamulka Mandera ayaa waxa uu sheegay in dadkiisu aysan marnaba u dulqaadan karin xiisada xun ee ka dhalatay xiriirka go'aya ee Kenya iyo Soomaaliya. senatarka ayaa sheegay in walwalka ugu weyn ee haysta dadka uu ku metelo kursiga uu yahay abaabulka socda iyo xiisada labada dal oo ka sii dartay, taasi oo uu ku tilmaamay mas'uuliyad darro la sameynayo. sidoo kale waxa uu sheegay in boqolaal ka mid ah dagaalyahanada xulafada la ah wasiirka arrimaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdulla Janan ay ku sugan yihiin magaalada Mandera muddo bilo ah. waxa kale uu ciidamada Janan ku eedeeyay inay weerar ku qaadeen deegaano xadka ah halkaas oo ay ku dileen
tabaneeyo sida uu sheegay. ugu dambeyntii waxa uu ku baaqay in la nooxo shacabka ismaamulkaas oo sheegay inaysan u dulqaadan karin in dushooda lagu dul dagaalamo sida uu hadalku u dhigay senator Maxamed Macalin Maxamuud. dowladda Kenya ayaa horey loogu gudbiyay dalab ku aadan in deegaanka laga saaro ciidamada janan hase yeeshee ma jirto jawaab ilaa iyo hadda ay ka bixisay cabashada shacabka iyo mas'uuliyiinta Mandera. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa si kulul uga hadlay xukun ay soo saartay maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha ee ECHR kaasi oo ay xukuumadda Ankara ku faraysay in si degdeg ah xabsiga ugu sii dayso siyaasi caan ah oo Kurdish ah. Erdogan ayaa si caro leh uga hadlay xukunkaasi isagoona sheegay in ECHR ay difaacdo xuquuqda argagixisada oo keliya kadib markii uu Demirtas oo ah ninka ay maxkamadda dalbatay in la sii daayo u xirtay Ankara arrimo la xiriira argagixisanimo. Salahatin Demirtas ayaa Erdogan waxa uu sheegay in mas'uul ka ahaa dhimashada 10 qof intii uu socday dibadbaxyo dhacay 5 sano ka hor xilli uu hadal u jeedinayay xildhibaanada baarlamaanka ee xisbigiisa. madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale ku eedeeyay Demirtas inuu xiriir la leeyahay kooxo sharci darro oo Kurdishka ah. Demirtas oo ah siyaasi caan ah oo Kurdish ah ayaa wajahaya 142 sano oo xabsi ah taasi oo ku mutaystay falal la xiriira argagixiso oo ay ku eedeysay xukuumadda Ankara hase yeeshee uu iska beeniyay eedahaasi. Salahuddin Demirtas ayaa waxa uu hogaamiye ka ahaa xisbiga labaad ee ugu weyn Turkiga ee loo yaqaano HDP ka hor inta aan xabsiga loo taxaabin bishii November ee sanadkii 2016 wuxuuna 2 mar madaxtinimada kula tartamay madaxweyne Erdogan. maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha ee magaalada Strasbourg ayaa maalintii Talaadada soo saartay xukun ay ku sheegtay inuu sharci darro u xiran yahay Demirtas muddo 4 sano isla markaana lagu xadgudbay xuquuqdiisa aasaasiga iyadoo oo dalbatay in si degdeg ah loo sii daayo. antaas ayaan ku soo afmeerinaa wararka maanta telefishinka SB TV. antan warkan war labadan ku kulmi doono waxa idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.